Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawo kanalka Farsamee maalin wanaagsan. Waxaan rajeynaa inaad caafimaad qabto. Maanta waxaan wadaa barnaamijkii yahay ila qorsheey. Waxaan qorsheehaynaa oon isla wada qorsheehaynaa bishan soo socota ee February. Bishii hadda lasoo dhaafay ee January bal ka fikir waxyaabaha kuu qabsoomay, waxa aan kuu qabsoomin, waxyaabaha ay tahay inaad wax ka bedeshid, yacni iyo waxyaabaha ay tahay inaad sii joogtaysid. Tusaale ahaan aniga hadda bishii hadda lasoo dhaafay waxa ay qorsheysnaa inaan 2 buug aqriyo, laakiin nasiib wanaag waxaan aqriyay 4 buug. يعني maadaama imtixaan aan haystay oo bishii hadda afarteedii waxaas imtixaanaadka i bilaabanayeen waxaan is dhahayay yani ma aqri kartid buugaag badan oo 2 buug bis ayaa awoodi doontaa laakiin 4 buugaan aqri 4 buug aan aqri waxay kaliya mid waa idinla soo wadaagay oo waxaa la yiraahdaa muu aqriyo waalidkayga sidoo kalena buuga labaad waan aqriyana waxaa la dhahaa mashruuca la dagaalanka nuurka oo buug ogaalmaal ay isla aqrinayaan bishii waa kusoo biiri kartaa ogaalmaal waad nagala mid noqon kartaa qolyaha sida billaha ah hal buug u aqriya sidoo kale buugga saddexaad ee aan aqriya waxaa la yiraahdaa isma lure asagana waan la soo wadaagi doonaa inta lagu guda jiro isbuucan hadduu ilaaha idmo buugga afraad ee aan aqriyana waxaa la yiraahdaa antichristus marka afartaasaan buugga aqriya bishii hadda lasoo dhaafay sidoo kalena alxamdulilah imtixaanaadkii waxyaabihii sidii aan rabo way iigu qabsoomeen sidii aan rabana way ii noqdeen marka adigana isku day inaad bishaada gadaal ugu laabatid oo aad ma aragta ka fikirtid wixii kuu qabsoomay iyo wixii aan kuu qabsoomeyn aanu imaano qorsheynta bishan soo socota ee bisha labaad waxa ii yaala qorshaha ii yaala ayaa waxay tahay inaan horta aqriyo 4 buug macquul inaan ka badsho inaan ka yareeyo laakiin 4 buuga miiska ii saaran 4taas buug waa inaan aqriyo afarta buug oo aan rabo inaan aqri bisha socota weli maanan go'aansan adii 2 xabaa ka go'aansaday mid la yiraahdo salaad baa dhaaftay iyo mid kale oo la yiraahdo 12 rules of life kuwa kalena laakiin labada kale gadaal uga soo dara ma aragti markii aan fiirsho buugagta ugu badan dadka oo aqriyaan mise ugu xiisaha badan gadaal uga soo dari doona laakiin labadaas buug hadda ma aragtay ay magacaaban laakiin 4 buugan aqri doona qorshaha kale ee bisha socota aan leeyahay waxay tahay inaan 2 kun oo eray oo af Turkish inaan barto yani saa idin sheegaba waxaan rabaa inaan af Turkish iska baro bishan hadda lagu guda jiro yani alxamdulillah si fiican ay igu socoto yani erayo badan grammar badan wax badan aan bartay laakiin hadda waxaa isku dayay jadwalka inaan qaabkii hore u bedelo oo bil erayo barto bil grammarka barto bil hadalka isku dayo yani saasan sameyn rabaa marka bishan hadda soo socota waxaan rabaa inaan 2 kun oo eray aan barto haddaan ka badi karo fiican laakiin 2 kun oo eray oo yani luqada Turkishka kuwii aan hore u aqaan aan ahayn oo cusub ayaa bara doonaa qorshaha saddexaad ee ii yeesho bisha February ayaa waxay tahay hadduu ilaahay idmo jaamacadda waxay ii furmaysaa 7 yani 7 iima furmayso laakiin 7 waxaa la bilaabaa diiwaangelinta iyo waxaas la bilaabaa laakiin waxay si rasmi u furmay 13 marka waxaa isku dayi doonaa in ilaa laga gaarayo 13 maadooyinka ugu fiican yani jadwalka ugu quruxda badan inaan degsado si hadhow markii ma aragtay maadooyinka la iska bedelayo oo waqti kale waxaa jira la iska bedelay maadooyinka qaar oo ma aragtay 17 miya ama 20 meelahaas camal yani waqtigaas si aanan u bedelin yani inaan qaato maadooyinka ugu muhiimsan yani igu waxtar kale jadwalka ugu quruxda badan inaan degsado yani inta lagu guda jiro intaan la gaarin 13 bisha intaan la gaarin sidoo kale qorshaha kale oo yaala waxa ay tahay in maadooyinka aanan bedeli doonin oo fixedka oo semesterkaas loogu talagal in isla aqriskooda aan isla bishaas bilaabo yani si hadhow markii imtixaanaadka aan galayo aysan igu adkaan oo maado walba waqti ku filan aan siiyo oo isla markaasba aqriska aan bilaabo waa qorshahayga afraad qorshaha shanaad aan leeyahay waxay tahay dabcan in adinka markasta muuqaalada la soo wadaago ugu yaraan isbuucii hal muuqaal in la soo wadaago sidoo kale fiiro gaara inaan wixii halkan aan kusoo qoro inta badan yani hadday buug qulaasayn tahay aan ayadana fiiro gaara aan ka warhayo qorshaha lixaad ee aan leeyahay marka loo imaado caafimaadkayga markii loo imaado yani waxyaabaha ay tahay inaan ma aragtay caafimaadkayga ga taxadaro waxaan isku dayi doonaa horta maalin kasta subax kasta inaan sameeyo 15 daqiiqo oo exercise inaan sameeyo 15 daqiiqo ma bisha hadda lasoo dhaafo 30 daqiiqo sameynay laakiin bishan waxaan ka dhigi doonaa 15 daqiiqo ka dhigi doonaa hoos u yareey doonaa laakiin maalin ma sameyn doono maalin ma iska dhaaf yani si joogta subaxdii markaan soo kaco waxa ugu horeeyo aan sameeyo markaan salaadaha iyo waxaas ka soo baxo waxa ugu horeeyo aan sameeyo yani 15 daqiiqo ay noqon doontaa mid kale oo aan caafimaadkayga kaga taxadaray doono waxay tahay inaan ugu yaraan nafteeda aan ku qasbo maanta inaan 2 litir biyo cabo dabcan qof dadku biyuhu way u faa'iideyeen maalin kasta waa maqalnaa laakiin maalin kasta waa nal dhaha laakiin inaad joogto sida biyaha cabtid yani saayidii ma aragtay ay noogu adka qaasatan aniga saayidii ugu adkadan subaxdii cabo hadhow duurka yani inta badan ma marka waxaa isku dayi doonaa in maalintii 2 litir oo biyo
aan si toosa aan u cabo yacni aan isku qasbo xitaa mararka qaar asoo oon ahaynin aan isku dayna cawliyo markaan xilligan markii qaboobaha la galo ma ogi qabowga dartiis miya biyo badan inaa cabtid waxaasan uma baahnayo xitaa waxaa arkay maalin ayadoo bilaabto dhamaatay aada biyo cabin laakiin si guud jirka caafimaad uma marka waxaa isku dayi doona inaa maalin kasta 2 litir oo biyo aan cabo yacni markii loo imaado caafimaadkii markii loo imaado caafimaadka jirkayga labadaas waxyaabood aa samayn doonaa bishan oo biyahaas badan iyo maaragtay kii badan adina dabcan waxyaabo badan aa samayn kartaa inaad sonkorta iska kala yareydo waxyaaba burka inaad iska kala yareydo dabcan haddaa taa qof culays la saa culayska iskaga kala yaraado ani markaygii hore ma ahayn dadka sonkor cunka badan iyo waxaas ma ahayn saasaan yani ugu soo dareen marka qorshayaasha ugu macquulsan oo aan idinla wadaagi karo oo aan bishan aan maaragta islaaha sameey waa intaasa markastana waa idin sheegaa qofku inuu qorshe lahaado way fiican tahay qorshe guud qorshe caafimaad qorshe maaliyadeed yacni qorshe dhinac dabcan wax kasta ilaaha qorsheeye laakiinse biniaadan si anaga unahay ficilkeena waa qaaban karnaa biniaadan sida anaguna waa dooran karnaa waxaan sameyna wixii qadartaa wax naga weyn yani waxaan celi karna ma ahan laakiinse ilaahay adduunkan wuxuu noo keenaa waxay tahay inaan inagu isticmaalno doorashadeena iyo rabitaankeena aan wax ku qaabayno wixii hadda naga awood weyna waa ay naga awood weyn waxaan ka samayn karaa labaarka marka adigana isku day inaad bishaadii hore gadaal ugu laabato milicsato sidoo kalena bishan cusub aad qorshaysato yacni qorshayaal la taaban karo aad tagsato yacni muuqaalkan waxa ugu horeeya aan u duubo ma ahan inaan wax anagu aan rabo aan sameeyo inaan idinla wadaago laakiin inaan idin xasuusiyo waxa ay tahay inaad qorshaysatiin oo aad bishiina qorshaysan kartiin waxyaabo badan aad noloshaada kusoo dari kartid waxyaabo badan aad noloshaada ka jari kartid caado cusub samaysan kartid caado cusub ma aragtay caado hore aa lahayd aad iska burburin kartid يعني وأنا حسوسينتاس مركا بالكستا وأنا دين جوجا إن دين حسوسين أو حسب نفتي نكسو درتن وحي هرا أنا دين وناكسنين نفتي نكسرتين مقال كان أنت صيوكو كوبي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.